waxaan ku riyooday buu yidhi anigoo habeen sardhexa ah ka soo kacay kadib qolka hooyo ayaan tegey waxaan arkay iyadoo salaad ka sii baxaysa labadeeda garabna laba nin oo cadcad ay fadhiyaan ma sheegi karo inay ahaayeen malaa'ig ama niman caadi ah laakiin inta ay qaadeen ayay geeyeen buur dahaba oo aad u ifaysa wax kastoo qaaliyana ay yeelaan magacaygu waa cabiir kunaal ka Soomaali ma hawaflaya wuxuu leeyahay magaalada Hargeysa ayaan ku noolahay sheekh waan xanuunsadaa xanuunkan ruuxiga ah yani waxa filayo jiman amba maskaxda kale uu sheegayo reerkeyguna waxay u soo celceliyaan guurso anna weli uma soo jeedo guur oo waxbarasho baan ku mashquulsanahay waxay yiraahdeen waan ku guurinaynaa iyadoo la qasbayn laakiin maslaxadayda laga talinayo arrintaasi xagga diin ahaan ma ku saxmaysaa in qofku marka uu xanuunsado loo guurin karo se wax jira ma tahay magacaygu waa cabiir kunaal ka Soomaali ma hawaflaya wuxuu leeyahay magaalada Hargeysa ayaan ku noolahay sheekh waan xanuunsadaa xanuunkan ruuxiga ah yani waxa filayo jiman amba maskaxda kale uu sheegayo reerkeyguna waxay u soo celceliyaan guurso anna weli uma soo jeedo guur oo waxbarasho baan ku mashquulsanahay waxay yiraahdeen waan ku guurinaynaa iyadoo la qasbayn laakiin maslaxadayda laga talinayo arrintaasi xagga diin ahaan ma ku saxmaysaa in qofku marka uu xanuunsado loo guurin karo se wax jira ma tahay alxamdulilah kole riyadan riyo maaha laakiin caadiyan qofka xanuunsanaya ama mariidka gaar ahaan mariidka nafsiga culimadu saynu ognahay arrintaa jaa-is bay ku sheegeen qof culamada ka mid ah oo diiday in qof xanuunsanaya oonu guursan karin ma jirto guurkan ka hadlaya ama xanuunkan ka hadlaya wax xanuun nafsiya maaha xanuunka ama xubinta taranka ama meelo kale dhibaato ku keenaya taasi waa baab kale laakiin tan maskaxiyan cid culamo ah oo diidan inuu qofka xanuunka nafsiga ayaa guursadaa ma jirto bale culamada madaahibta afarta madhab waxay isku raaceen xitaa qofka majnuunka ah inuu guursan karo kani waa xaalad nafsiya wax weyn maahe qofka maskaxiyan faaqidun licaqlihi ah oo maskaxiyan caqligiisa aanu jirin wax weeye waa jaais nikaax almajnuun waa jaais weeyaan qofkan xaaladda nafsigiina dee intay doontay ka hoosaysataa markaa way bannaan tahay hadduu raalli ka yahay dee qofkan lamaba qasbaya su-aashu siday sheegayso laakiin haddii aan la qasbayn dee wax weeyaan hadduu raalli ka yahay hadduu u arkayo inuu guursan karayo wuu guursan karaya ilaa intuu caafimaadaya haddii uu dib ugu noqonayo uu iska sugayana wuu iska sugi karayaa waxaa muhiima uun qofkaa uu doonayo ee loo doonayo in loo sheego in loo qariyo maaha aad bayna ugu badan tahay qof maskaxiyan xanuunsanaya ayaa reerkii laga qarinayaa inantii habeenkii arooska ay arkaysaa inuu ninkani dawo ku nool yahay uu xanuunsanayo taasi sax maaha waa in waxa weeyaan loo sheegaa hadday ku qaadanaysay ku gelaysay haddii kale walidaalika nebigu xadiidkii saxiix muslim min xadiid abi hurayra man ghashanaa falaysa mina buu yihi nebigu baabul ghashigay soo gelaysaa wax laale wixii cayba wax weeyaan qofka bani aadamka ka cararayo ee maqsuudka guurka wax yeelaya ee guurka muxuu yahay maqsuudkiisu muxuu yahay mawaddatan wa raxma waa nolol permanenta waa nolol daa'ima waa nolol kalgacayl iyo maxabbo leh noloshaasi waa inay khaali min alcuyuub walamraad ay noqotaa laakiin haddii culays uu jiro markaa dee wax weeyaan waa in la sheegaa uu qofku wax weeyaan isagu dookhiisa ku galaa wallahu aclam waxaan ku riyooday buu yidhi anigoo habeen sardhexa ah ka soo kacay kadib qolka hooyo ayaan tegey waxaan arkay iyadoo salaad ka sii baxaysa labadeeda garabna laba nin oo cadcad ay fadhiyaan ma sheegi karo inay ahaayeen malaa'ig ama niman caadi ah laakiin inta ay qaadeen ayay geeyeen buur dahaba oo aad u ifaysa wax kastoo qaaliyana ay yeelaan alxamdulilah soo tooskaasaad akhrileelka soo toosaysa eed guriga maqsinka hooyada aad tegaysa warwar iyo jacayl badanood hooyada u qabto u caddaynaya akhrileelka waxaynu ognahay inuu yahay waqtiga ilaahay ducada ijaabeeyo ilaahay subxana wa tacaala uu soo dego risaalad ruuxii oo aad u xoog badan bay arrintaasi xambaarsan tahay salaadan ay ku jirtaana waa daaco iyo qubuul iyo taqwo ilaahay agtiisa ah salaadda markay dhammaysatoy inay xaalad wanaagsan ku sugan tahay bay arrintaasi caddaynaysa labada malag ama labada cadcad ee dhabarka ka saaran garbaha malaa'ig bay noqon karaan dad saalixiina bay noqon karaan waa dad wax ilaalinaya khayrka ku qasbaya ama bashar saalixiina oo karaameynaya u hadiyeynaya bay noqon kartaa qaadistaa la qaaday ee meel dahaba ee nimcooyin taalla la geeyey iyo arrimo qaaliye waa meel sare
مكانة عالية وجنة ورزق آخره يا بالمرين حق إلهية ذهب كاسنا نمعو إيا كرامه إيا منزل عالية أي شيء يا أما عضينا يا والرياء ونكس أنت رياء نفسر إني تناوب فيها والله أعلم. waxaan ku riyooday annagoo aabbahay isku xanaaqsan oo khaladaad badan oo iga galay ku dhaleecaynaya una sheegaya hooyana way isku kaya eegaysaa kadib intuu hal mar igu soo booday oo i garaacay gurigiina iga saaray aniguna aan ka dhaartay inaan dib ugu soo laaban guriga. alxamdulilah dagaalkaad aabbaha la dagaalantay waa dagaal caadiya maahe waxaa kugu jirta raqbad inaad xorriyad hesho oo aad keligaas meel tagto ayay caddaynaysaa. riyada waxaa lagu fasiri karaa khilaafaad caayiliya inay jiraan oo qoysku qoys degan aanu ahayn qaylada riyada dhexdeeda la qaylinayo waxa weeyaan waxaad dareensan tahay dulmi in lagu dulmay waxaad dareensan tahay in culays lagu saaray oo doonaysa in culayska aad ka baxsato hooyadaa way ku eegaysaa waxbana ma odhanayso halkaas saboortkii iyo dacmigii iyo isbarbarjooggii hooyanimo kama heshid hooyadaa dilkaa lagu dilay ee guriga lagaa saaray waa sultad qawiya waa dhexgal adag waa khilaaf qoyska dhexdiisa jira oo nafsiyan adigana wax ku yeelay gurigaa lagaa saaray waa raqbada doonaysid laftarkaagu inaad baxdo oonad soo noqon dhaartaasaad ku dhaaratay inaad dib dambe guriga ugu soo noqonayn waxa weeyaan waa qaraar ama decision aad arrin ka qaadatay oona doonayn in cidi kaala hadasho waa arrin aad ku tashatay aad hore uga tashatay inaad samayso markaa waa iyada laftarkeedu waa culays family sidaynu kii hore u sheegnay. riyadan waxay caddaynaysaa in culays kaa saaran yahay qoyska aabbaha gaar ahaan ama aad tahay qof madluum ah oo la dulmay oo waxa weeyaan cagta loo saaray. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyo labaad oo sii wadato waxay tidhi magaceedu waa suhuur da'deeduna waa 19 jir sangal ah waxaan ku riyooday dad badan oo aanan garanayn oo xaafadeeda ka garanayo dadkaasi waxay isugu jiraan rag iyo dumar waxaa laygu yidhi nimankii guriga joogay ayaa mid ka mida la siiyey inantii suhuur la yidhaahdo meeday waa aniga inanka ayaa la riyadan soomaaliga in badan baan soo sheegay barnaamijka labaad oo ka dalka isagan ka hadlay iminka wallahi haddaan qof idinka mid u dhiibo sida ku kicinayo ogaadanta intaan sheekha riyada kale u dhiibayo anaa sii kicinayo kolba sii akhriyaya mar waxay ka dhigaysaa walaashaydu ku riyootay oo ka yar haddana waxay leedahay aniga baa ku riyooday qofkii lasoo doonay iska suul haddana waa aniga aad bay isugu dhex jirtaa laakiin waa isku dayaya waa riyo labaad bay tidhi walaashay oo iga yar magacaygu waa suhuur da'deedu waa 19 jir sangal ah waxaan ku riyooday dad badan oo aanan garanayn oo xaafadeeda ka garanaya dadkaasi waxay isugu jireen rag iyo dumar waxaa laygu yidhi nimankii guriga joogay ayaa mid ka mid ah la siiyey inanta suhuur la yidhaahdo meeday waa aniga inankan ayaa lagu siiyey ninku wuxuu ahaa nin wada cirro ah way oyday halkeengeeyaa ninkan aad siiseen ayay tiri iisoo fasir insha allah markaa riyadu si guud waxay noqonaysaa waxay leedahay walaashay oo iga yar oo suhuur oo la yidhaahdo oo 19 jir ah ayaa dad badan baa guriga joogay maan garanayn se waxaa laga sheegay in dadkani mid ka mida la siiyey suhuur ninkani aad buu u ciraysan yahay waa nin weyn suhuurna way ka oyeysaa waxay leedahay ninkan cirrada halkeengeeya. alxamdulilah waa baqasho ay baqanayso inay guursato waxay ka baqanaysaa qof aanay raalli ka ahayn la siiyo waxay diidantahay inay mas-uuliyad qaado oonay diyaar u ahayn waxay arrintani caddaynaysaa qaraar nolosheeda ka mid ah guur oo keliya maahe jaamacaday gasho iskuulay ka baxdo meelay ka wareegto in qaraar nolosheeda ku jira aanay ogolayn in lala yimaado. dadkan faraha badan ee riyada ku jira waxa weeya waa dad fara badan oo majhuulin oo la garanayn oo nolosheeda faragelinaya tanay leeyihiin way guursanaysaa waa qaraar soo bixi doono nolosheeda xiriir la leh ninkaa weyna ay tiri ma guursanayo guur xitaa noqon kari maysa xikmad bay noqon karaysaa ama arrin yani waxa weeyaan nolosheeda ku soo kordhay oohintaa ay ku diidaysa guurka waa waaqic jira ama arrin la kala doorsiinayo ayay diidantahay oonay raalli ka ahayn dulmi bay dareensan tahay iyo culays aanay diyaar u ahayn in loola yimid wallahu aclam. magacaygu waa mubaarik waxaan jiraa 20 sano waxaan ku riyooday
geed gurigayga hortiisa ka baxay oo adduunka waxa midhayaal ay ka baxaan oo aad u qurux badan walaashay oo iga weyn oo ila taagneed ayaan ku idhi eeg iminkaa la cawriyi doonaa alxamdu lilah geedkaa midhaha badan leh waa khayr arsaaqad caafimaad nimco fara badan oo maadiya ama macnawiya oo qoyska ama faamiliga laynka ugu soo jira ama u soo socda inantaa leh ilbaa laynagu dhufan doonaana waxay caddaynaysaa xasadka iyo nicmadda zuuliddeeda inay ka baqanayso riyadu waxay caddaynaysaa marka la isku soo koobo in nimco badan oo weyn reerka u soo socoto oy tahay waajib inay iska ilaaliyaan xasadka iyo inay muujiyaan iyo de wixii finiiqa iyo wixii ilaahay raalli ka ahay inay la yimaadaan adkaartana way ilaalin doonaan insha allah wallahu aclam. سؤال عادي.